وهجاج هدي أينو دين عكلنا إجنو حاجة يودن السودان حول نول يبدوعين أيام مالنتي استقالات كوحنبن حد كأود حياة دلالك السودان يا مصر حدنا شاهد شوك تذا أي وذان قدية ذا وحيسك عابنت السودان تكونفريد إسكو حد السودان يا مصر أيا قالي مالنتي استقالات دبت بحياش السودان تكونفريد أيا دور رفيس كسمايستي وضد إسكو حد الله بدل وحينا هكذا قليين دقدقاقي قاديدك أي مصر leedahay oo dib ugu laabanayay Masar iyagoo wata xoolo iyo alaab kale oo Suudaan ay ka soo rareen dibadbaxayaasha oo u badan beeraley ayaa markii hore xiray wadada sabab la xiriira in dawladdu ay sare u qaaday kharashka ku baxa korontada arintaasi oo dawladda ku qasabtay in ay isbedel samayso mudaharaadka joogtada ah ee ka socda wadanka Suudaan ayaa aakhirkii isu bedelay diidmo ballaaran oo lagaga soo horjeedo afgambiga iyo mucaaradka ka soo horjeeda militariga iyo xulafadooda gobolka oo ay ku jirta Masar muuqaalo lagu faafiyay baraha bulshada ayaa muujinaya saf dheer oo gawaari kuwa xamuulka ah oo masaari ah oo ku xaniban wadada saxaraha ah ee isku xidha Khartoum iyo Ergeen ee xadka ku taala muuqaal gaar ah oo laga duubay meel u dhow iska soo hadinta kaasi oo uu duubay wadaha gaariga xamuulka ah oo masaari ah ayaa kiciyay caro ku saabsan go'doominta mudaharaadayaasha Suudaan ninkan ayaa soo bandhigay 18 baabuur oo ay ku raran yihiin lo oo ku go'doonsan dhanka dalka Suudaan waxa uu ugu yeedhay arintaasi calooshood u shaqaystayaal muuqaal kale ayaa muujinaya saf dheer oo baabuurta xamuulka ah oo masaari ah kuwaasi oo tuban jidka u xidhan mudaharaadayaasha qaar badan oo kamid ah dadka u ololeeya dimuqraadiyadda ee gobolka ayaa ka soo horjeeda dhoofinta xoolaha nool iyo badeecooyinka kale ee laga soo guro ama laga soo daabulo dhulka beeraleyda ah ee wadanka Suudaan waxaana ku andacoonayaan inay faa'iido u leeyihiin ciidamada iyo shirkadahooda